salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan waa salaamantii meel kastoo dunida daafeeda ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena wararka akhbaaraadka koonfur hindiya anigoo kusoo qaadan doona qodobadii ugu dambeeyey fadlan hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato janaalkeena fadlan sabscribe noo saar like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan aragtadaana commentiga noogu reeb Barabas iyo Buja Heji filimkooda Red Sham ayaa laga soo bandhigay aragtida koowaad Barabas iyo Buja Heji ayaa la sii daayay sawiradooda filimkooda halka maanta Barabas ay u tahay maalin qaas ah maxaa yeelay waa maalinta munaasabada dhalashadiisa Barabas boorarka filimkan oo ciwaan loogu dhigay Pit of Red Sham ayaa muujinaysa Barabas iyo Buja oo romantic ku dhex sameynaya tareenka dhexdiisa Directorka filimkan ayaa bartiisa baraha bulshada kula wadaagay sawirka taageerayaasha actorkan wuxuuna ku qoray kaalay marqaati ka noqda sida ay dib ugu qeexayaan jaceylkooda dib ugu qorayaan sheekadooda jaceylka halka ay kulmayaan labada qalbi dhanka kale daawadayaasha qiimaha badan waxaan hore idin kula wadaagnay in Ajit uu soo wado filimkaasoo lagu magacaabo Balimay kooxda filimkan ayaa ambaqaadi doona duubista filimkan Balimay laga bilaabo 25 Oktoobar isla bishan inkastoo qaybo ka mid ah la duubay filimkan ilo ayaa leh jadwalka xiga ee filimkan wuxuu ka bilaaban doonaa Ramoji Film City oo ku yaala Hyderabad Kartikeya Huma Qureshi iyo xubno kale oo muhiim ah ayaa sidoo kale goobjoog ka noqon doona jadwalkan kaasoo socon doona muddo loogu talagalay toddobaadyo soo socdo kooxda waxay qaadaysaa dhammaan shuruucda u yaala doono coronaviruska taxadarka si loo hubiyo badbaadada dadka iyo shaqaalaha iyadoo la baarayo heerkulka caadiga ah iyo heerka qabka oksijiinka qofka jilaaga Gundambi oo warar xaxan ah laga qoray waxay u muuqataa inaysan dhammaan wararka xanta ah ee ku saabsan caafimaadka majaajilistaha Gundambi inkastoo warar been abuur ah laga qoray jilaagan kuwaas oo sheegay inuu geeriyooday warkan waxaa faafiyeen wargeysyada dad leh YouTube haddaba ilo wareedyo ku dhow actorkan ayaa sheegay in wararkaas oo dhan ay yihiin kuwo aan run ahayn waxaa jira warar badan oo xan ah oo ku saabsan caafimaadka majaajilistaha Gundambi oo ku saabsan si kastaba ha ahaatee uu fiican yahay jilaagan xaqiiqada xitaa wuxuu saxiixday filim cusub Gundambi wuxuu qorsheenayaa inuu dacwad ka gudbiyo kuwa been abuurka ee wararka si faafiyay wakiilka warbaahinta ee jilaagan ayaa yiri haddii qof la dhahay uusan ka saarin aan ku celiyo wakiilka warbaahinta ee jilaagan ayaa yiri haddii qofka la dhahay uusan ka saarin YouTube-ka macluumaadkan qaldan ee ku saabsan Gundambi barta YouTube-ka ma lahaan doono doq kale inaan ka qaadno talaabo sharci ah oo ka dhan ah asiga actorka lagu magacaabo Karti ayaa u soo bixi doona muuqaalka koowaad filimkiisa lagu magacaabo Suldaan kaasoo soo bixi doona 26 Oktoobar isla bishan waana muuqaal aad loo sugaa actorka Nagarjuna wuxuu taageerayaashiisa la wadaagay video filimkiisa cusub waxaa la ogaaday in actorka Nagarjuna uu aaday dhanka Himalaya si loo dhameystiro filimkiisa soo socda ee Wild jilaagan ayaa baraha bulshada kula wadaagay taageerayaashiisa muuqaal laga soo duubay filimkiisa kaasoo uu ku jilayo wakiil ka socda NI hay'adda baarista qaranka marka laga reebo Nagarjuna filimkan waxaa sidoo kale jilayaasha ka mid ah Dia Mirza Atul Kulkarni iyo Ali Reza oo door muhiim ah ku leh filimkan Superstar Barabas ayaa maanta u dabaaldegay dhalashadiisa 41 23 bisha Oktoobar ayuu dhashtay xidigan laga soo bilaabo subaxnimadii maanta baraha bulshada waxaa durba soo buux dhaafiyay taageerayaashiisa oo ugu hambalyeynaya xidigan dhalashadiisa Superstarkan waxaa dhashay soo saare reer Telugu ah Zarya iyo Ziva Kumar xidigan ayaa dhashtay sanadkii 1979 actorkan Barabas ayaa safarkiisa filim jelista bilaabay sanadkii 2002 Barabas wuxuu kasbaday guushiisii ugu horeysay box office-ka filimkii Varjam wuxuuna ku sii waday superhitka sida Gadrami Darangi Mirji iyo guushiisii ugu weyneed ee Bahubali maalinta qaaska ka hor Barabas ayaa lagu soo waramayaa inuu codsi hoose u diray dhammaan taageerayaashiisa wuxuuna sheegay inuu aad uga farxi lahaa haddii qof walba uu raaco sida lagu sheegay warbixinta ku jirta bogga wararka jilaaga Saaho ma doonayo in ehelkiisa ay ku bixiyaan lacagtooda adag ee ay ku kasbadaan boorar iyo boorar taa beddelkeedu wuxuu doonayaa inay la wadaagaan xubnaha qoyskooda wuxuu yiri waxaan jeclaan lahaa inaan hal shay iraahdo taageerayaasha dadka qaar waxay ka shaqeynayaan qarashaadkooda maalinlaha ah haddii filimkeyga sii daayo waxay ku bixinayaan 500 ilaa 1000 rupees boorar tikadyo fadlan ha sameynin taas soo qaado raashin oo la cuno qoyskaaga waan ku farxi lahaa micnaha hadalkan wuxuu dhigmaa actorkan inta lacag ku bixin lahayd boorar waaweyn aad ku xardhi lahayd magaceyga fadlan lacagta barku ku sameyn lahayd qoyskaada kula damaashay haatan Barabas wuxuu duubay mashruuciisa soo socday Red Sham
gudaha Talyaaniga waxaana kala qayb ah filimkaas Buja Heji.